haddii dadka sharafta leh xildhibaanada sharafta leh ayna boogtu ku oolin haddii ay maanta wax laga sheegi lahayn waxba noqon lahayn ninka Cabdirashiid xisbiga u jooga oo runtii aan jecelahay inaan wax badan aan ku dheeraan oo xididna nahay laakiin nin maantaba boogti wali ku taaloon bogsano muxuu ahaayay xisbiyada mucaaradku sharaftiisa u soo celiyeen waxa weeye runtii reer taariikh lana ka soo jeeda laakiin taariikhdiisa waxa ka turjumaysa waxa weeye halka uu jooga iyo halka uu ka hadlay iyo halka uu yaalo Soomaalidu waxay tiraahdaa dabba dambas dhala hadaan ahay gudoomiye gobolka waxaan leeyahay xildhibaan Ibraahim haga dhigo waqtiga wali ku bogsan shalay baad jeel ka soo baxday runtii boogta Cabdirashiid oo sheegtay inuu yahay xoghayaha gudoomiyaha xisbiga ucud ninka boogtali waxa weeye ninka habeenkii jabhadda leylaka lagu geynaya biyaha booyadaha ee adeerkii iyo isagu ay la dhacayaan nin aqoontiisu aad u gaaban tahay iyaan anu ninkaasi u qaato waxaan eegay ciyaalkeena aniga garab joogeen anu dhalay baa ku qosday kelmadaha uu ku hadlay boogtu waa ninka ka codka ka doonayana xabadda ku dhifanaya ka waxa weeye runtii codka u hayana isiila codka boogtiisa ninkaan ogeyn waa ninka war ma dhagaxda u codayni waxaan leeyahay xildhibaan Ibraahim waa abaalaaway abaalba malaha waxay la tahay inuu shaqadiisa garanaya isku haysto xildhibaanada qaranka ay isku haystaan waa xildhibaanka uu dheeraynaya hadduu wax kala doonaya soo cadeeyo cadaynu ma baahna Cabdirashiid wax loo haystaa dad socday baa loo haystaa waa nin bila miisaana arrintaana si degdeg ah waa inuu jawaab degdeg uga bixiyo hadduu uga bixin waayana waa waxyaabaha talaabada laga qaado xildhibaan waad garan laadahay ama waad habuusan tahay Cabdirashiid Xasan Wataan halkuu taagan yahay waad garan laadahay inamada yaryar ee kale runtii iyagana waa inama yaryar oo nadeero ahay iyaga waxa weeye waxba kama sheegayo runtii xildhibaan Ibraahim wuxuu ahaa nin ariga ku eega buurtii libaaxley ariga ku eego arijirka iyo waxaan oo dhan waxa weeye ambiyadii Ilaahay iyo dadka wanaagsanaa iyo waxa weeye taariikhda dib ha ugu noqdaan iyaguna waxaan leeyahay xildhibaan Ibraahim waad habuusan tahay horta buurtii libaaxley aad ka soo dhaadhacday dib ugu buurta libaaxley runtii waa district boorama meel fog maaha xildhibaankan waa xildhibaanka ka dambeeyay shirkadda kalluumaysiga ee Lughaya laga keenay inuu kawaanka dejiyo anu meeyhi cid xuduud kale ka soo talowday oo dalka waxa weeye fujo ka qaadata meeyhe muwaadin Soomaaliland daranahay dadka wax wadalana waxba ka dhaxeeya xildhibaan boogtaadi kuma bogsan boogta kale heenin isogeyni waa ninka dawladda maanta jirtana wakiil kama tihi xukuumaddan maanta joogtaana sharci bay ku timiday hadaad reernimo u hadlaysana kuwii ku soo doortay codka ku siiyey maxaad ku celisay ceel baxay baa lagaa soo doortay ceel baxay Soomaaliland bay kamid tahay kama mid aha wadanada jaarka ee waxa weeye ka baxsan Soomaaliland sida ha u ogaado malaha maamka ka lunsane ceel baxay baa lagaa soo doortay codkaad ku timid baan ognahay ceel baxay maxaad u qabatay ceel baxayna waxay wax la qabtaa dalka aniguna aan ka tirsanahay ee Soomaaliland